السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel ka Learn Somali maanta waxaan idin soo bandhigaynaa buuggii ugu horeeyay oo aan daabacno oo physical book ah. buuggan magaciisa waxaa la yiraahdaa Baro af Somali, Learn Somali. waa book 1 waxaana loogu talagalay qofka aadka bilowga u ah oo raba in Soomaaliga la baro. ciyaalka yararka ah baana khaasatan loogu talagalay buuggan. waa book coloring book ah oo ilmaha af Soomaaliga la barayo baa la rabaa in uu asagu kaloraati mariyo ama color saad u taqaanid midab buugga inuu midabeeyo. waxaan ugu talagalnay in maadaama buuggii aan sameynay haddana aan caawimaad ka geysano in ardaygii ama ilmihii yaraa buuggii liis loo akhriyo. marka waxaan rabnaa in aan barnaamijkan buugga ugu akhrino ilmaha kana dhigno casharo yaryar oo ilmihii uu xamili karo aanan ka dhigin bilow ilaa dhammaad hal mar aanan akhrin. qaybtan ugu horeysa waxaa weeye introduction, buuggu wuxuu yahay iyo qaabka loo isticmaalo. aniga magacayga waxaa weeye Maryan Cusmaan. qofka buugga qorayna aniga weeye yay. channelkan Learn Somali cabaar baan soo wadnay. marmar badan waqti waa u waayay sababtoo ah caruur baa ii joogto ka mashquulay. laakiin casharo dhowr ah ciyaalka waa soo geliyay dhowr laakiin waa waqtiyo hore. fast forward buuggan waxaan daawacnay bishan hadda January. waxaa laga heli karaa Amazon-ka haddii Amazon-ka aad ka adeegataan. dhowr wadan buu available ka yahay. insha Allah tacaala linkiga laga gadan karo buuggan waxaan idinku reebeynaa description-ka. haddii aad joogtid Minneapolis, Minnesota haddii aad joogtid oo aad rabtid buug inaad meel kasoo gadatid oo aad online ka dalbanin waxaad kasoo gadan kartaa maktabadda Akmal bookstore oo ku taala suuqa 24ka. lambarkeeda, adreeskeeda iyo sida meesha looga heli karo waxaan idinkaga tegaynaa linkiga description-ka videogan. videogan waa qayb ka mid ah qaybo insha Allah tacaala aan buug ku akhrin doono saa hore idinku sheegay. inta aanan gudagelin buugga iyo qaabka aan ardayga u bari doono waxaan rabay in aan qofka waalidka ah ama macalinka ah in aan waxyaalo yaryar aan kala hadalno. buugga qaybtiisa ugu horeysa waxay leedahay wax ka caawinaya ardayga ama waalidka si uu u barto alifbeetada Soomaaliga. xarfaha ku hor qoran alifbeetadan waxaa weeye waa alifbeetadii Soomaali ah iyo ereyga ka caawin kara ereygan dhawaaqiisa. because waxaa dhici karta qofka Soomaaliga la barayo waalidkiis ama macalinkiis inuusan Soomaaliga aqoonin somehow oo Ingiriisku u yaqaano. marka erayadan waxay ka caawinayaan xarfaha sida loo dhaho xaraf walba oo alifbeetada uu ka duwan yahay alifbeetada Soomaaliga uu ka duwan yahay. xarfaha qaar badan baa waxay ka duwan yihiin xarfaha Ingiriiska. marka waxay ka caawinaysaa sidii loo dhihi lahaa shaqal dheerkii iyo shaqal gaabkii wixii dhan waa ku yaalaan buugga. marka insha Allah tacaala waxaan rabnaa in aan ka dhigno af Ingiriis iyo af Soomaali oo ilmihii Soomaaliga yaqaanayna haddii ay Ingiriiska baranayaan ayagana dhinacaas ay ka faa'iideystaan. marka waxaan isku dayaynaa videoyo yar oo gaagaaban 5 daqiiqo aan ka badnayn in aan hadduu alla idmo ka dhigno. marka videoga hadda kan ku xiga insha Allah waxaan ka bilaabeynaa buugga qaybta koowaad. waxaana barnaamijkan u bixinay color with me oo macnaheedu uu yahay ila midabe ama ila color gare saad u taqaanid. sawiradan baan ilmahana xarfahana bari doonaa insha Allah. kaloraatigana waa marin doonaa insha Allah tacaala. kalaradana magacyadooda waa u sheegi doonaa. marka Ingiriis iyo Soomaali labadaba waa ku hadlayaa hadda alla idmo.